Bean wuxuu qaybo badan ka soo qaatay riwaayado kala duwan oo waagaas caan ka ahaa Ingiriiska ilaa ugu dambeyn gacantiisa ku sameeyay riwaayad uu isagu leeyahay markan loogu magac suntay magacaynu maanta u naqaano ee Mr Bean 5 February sanadii 1990 wuxuu guursaday xaaskiisa Sunita Sastry waxayna dhaleen 2 caruur ah oo kala ahaa Lily iyo Benjamin waxayna deganayeen London xaaskiisa waxa isku barteen jilistii filimkii Black Hader sanadii 1986 waxayna ahayd khabiirad qurxisa jilayaasha filimkaas ku jira sanadii 2014 bisha February ayna kala tageen kadib markii Mr Bean xiriir hoose la sameeyay gabadh kale oo jila ahayd oo markaa lagu magacaabi jiray Louise Ford iyaduna ugu dambeyn waxay u dhashay ilmihiisa saddexaad haddaba mar wareys laga qaaday Mr Bean waxa la weydiiyay ma jirtaa dhacdooyinku soo maray intii aad ku guda jirtay jilaanimada isagoo in badan la yaaban oo qoslaya ayuu xooday way jirtaa waxayna dhacday sanadii 2001 maruu dalxiis ku tagay dalka Kenya isagoo hawada ku jira ayaa dirawalkiisii diyaaradda u waday suuxay muddo 8 saacadood ah ayuu ahaa dirawal diyaaradeed Mr Bean ugu dambeyn uu soo kacay dirawalkiisii wuxuuna noqday qof taama dhacdadaas ayuuna sheegay inay ahayd abidtii noloshiisa ugu la yaabkii khatarta badnayd ee isaga soo marta hayloobin inaad like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad nagula saaxiibto barteena TikTok iyo barteena YouTube